Sumaya Nuur Cabdullaahi oo 23 jir ah waxay ka qalin jabisay jaamacadda magaalada Muqdisho kadib markii ay shaqo ka weysay waxa ay go'aansatay ganacsatada gudaha inay ganacsi iskeeda ay u samaysato oo hilibka oodkaca ay iibisa 7 bishii June ayaan warbixintan ka diyaarinay ganacsiga cusub waxa ku bilaaba oodkaca ay sameyntiisa jikada gurigeena oo ahayd meeshii ku sameeyay oodkaca ina oodkaca ku sameeyay jikada guriga qayb kamid waxyaabihii guriga laga isticmaalo ku sameeyo caagada yaryar oo ayadana ku caleenta iyo heelka iyo waxyaabahaas lagu shubtaa oo ahayn hadda wax aniga gooni iigu soo saaray aan ku package gareeyo dadkina sidaas ugu sii gad ayagoo packaging ah oodka in guriga aan ku sameeyo caagadihiina ay yihiin wax magaalada Muqdisho laga helayo suuqeeda sameynta oodka waxa ka barta hooyada macaan kaltoon dirxaash ilaa khayr hasiye oo yani guriga naga mar walba ay ka sameynayso itusi jirtay qaabka loo sameeynayo marka ay sameynayso marka intuu dabka saaran yahay waxyaabaha lagu garto in oodka uu bislaaday intuu dabka saaran yahay sida loola tacaamulo iyo talaabooyinka la qaado marka oodka dabka uu saaran yahay xarun gooni oo liigu soo hagaaga ma lahayn gurigeyga dadku soo wacayaan taleefanka iga soo wacayaan marka laga soo tago dalbashada taleefanka ama page-ka Facebook ku leenahay waxa jira website ayadana sidoo kale wadani foods la dhaho dadka inta soo galaan ay ka soo dalbanayaan qofku magaciisa marka website-ka soo gal wuxuu arkayaa productigeena oodka ahaa faahfaahin yar waxa ku qoran dalbo ama order macaamiisha ugu badan aan leeyahay aroosyada sidoo kale dhalinyarada ayagana qoysaskooda aan la joogin iskaabulada ah oo ayagana suuqeed ugu weyn aan leenahay dadka naga soo dalbado oo ugu faraha badan oo isleenahay yani laf dhabar businesskiina iyo maadaama oodka inay sameystaan hawl adag ay ku tahay caqabadaha ay qabsado waxa kamid ah hilibka marka inta suuq uu yaalo iyo marka sameysid kadib farqiga u dhaxeeyo tusaale ahaan kiilaha oodka ee diyaarsan waxa laga sameeyaa ama ka soo baxa 2 kiilo iyo baro hilibka ceerinka marka dadka qaar waxay ku dhahaan seen oo gadaysa hilib kiilo oodka ah ina inta sanad waxay rabaan ina u sharaxdid ta kaleeto delivery-ga oo asigana waxyaabaha shaqadeena base-ka ah malahan magaalada Muqdisho guriyaha address ama number oo dhehayso guri hebel xaafad hebel ka deganahay number hebel ka deganahay qofku ma ku dhigi karo xaafad hebel ka deganahay wada hebel ka sii deganahay inuu ku dhaho oo wadadii aad tagtid waayahay waqtigu wax badan bay ku tusaane warbixinadii la yaabka lahaa ee aynu sii deena sanadkan waxa kamid ahaa aroos magaalada Hargeysa ka dhacay oo ka duwanaa kuwii hore aynu u naqaanay nin ayaa hal mar labadan gabdhood hal meel ku wada guursaday Qaalib Xasan Baaruud ayaa sharaxaya in laba haween ah la wada guursado ma aha wax ku cusub dhaqanka Soomaalida laakiin waxa ugub ah in laba hablood oo gashaanti ah hal mar la wada mehersado lalana aqal galo Saxardiid Ibraahin Cawad ayaa dhawaan aroosay laba gabdhood ilaa yaraanteedii oo ku aamini jiray waxaan ku raawaan jeclaa inaan aroos ballaaran ii dhaco labada dumar aan mar wada arooso ka bacdi markii dambe aan ku guuleystay ma sha Allah waa dhacdo naadir ah maxaa ku kalifay Bashiir waxa weeyaan horta markii hore labadaba mid bas gaar ah oo sheegsan jiray dadana labadaba way jeclaan si dhaw labadaba way jeclaan ka bacdi markii dambe aan isku keenay oo isku sheegay horta aan isku keenay ma isku sheegay markaan isku sheegay ismaqli jiray baan ismaqlaa ayaan habeenkii dambe isku keenay Bashiir waxa uu watay qorshe cad balse sidee buu ugu soo bandhigay hablaha uguna qanciyay Nimco iyo Iqra waxay u sababeeyeen inay aqbalaan guurka caynkan ah jacayl ay labadooduba u qabaan Bashiir waxayna sheegeen inay iyagu doorteen aroos laba geesood ah si aysan u kala masayrin markii horeysay intaan aan ismehersan ee sheekada korta yuuri adigana oo kala sheegastay inaan kala sheegastay labadiina ma wada jecel waxaan doonayaa marigooda gurso si haddii aan idin kala horeysay almaana oo aydan u hinaasin waxaan ku kala deelka la kala horeysay kulli qasabta hinaasa way imanaya tan ugu horeeyay hinaasa hadii ka tawaada horeysan waa hinaasa taa qasab way imanaya marka ku disku marna waa disku marban ka dhigay biyo guri waan ku aqbalay waan ku heshinay ma sha Allah anaguna de markaan la weydiiyay mid walba tiraan ku qanacsanahay saddexdeeda waan isqaabilnay
laakiin sheekadu markay sida ahayd ka bacdeen wuxuu noo soo dejiyay inuu marna wada guursado maasha Allah anaguna waan ku qanacsanayn waana ka aqbalnay bashiir waxa uu ka shaqeeyaa dhismaha guryaha walow ay bulshadu aad ula yaabtay guurka bashiir haddana waxa uu rajaynayaa inuu mar kale laba dumar ah wada guursado haddii uu dhaqaalo u helo balse su'aashu waxay tahay haddii uu hirgeliyo damaciisa cusub iqra iyo nimco ma ka masayri doonaan tartanka ciyaarta shaxda ee loo yaqaan jeeska ayaa ka furmay maanta magaalada Hargeysa oo bixinaya midka hayna nadaasi waxaan ku daawan doontaan barnaamijka sidoo kale 2018 sanadka sii dhamaanaya waxaan ku eegi doonaa warbixinadii ugu xiisaha badnaa ee sanadkan aan sii dayno waxaan ka xarunta shirarka casriga ah ee lagu baaro dambiyada oo laga furay magaalada Garowe واسدتين جيب كنت سنة تاغروا هاي كوحدة كبدا عدت دقمنا وابري علي محمد آدم بي بي سيلا إيالها على شكدي مكي كوحدة إذا كبدا عدت أي بوليستي سنة كان ونحن بعد سنة وحي كبدين هو تقوات فران نيسو قلنا سنة كبخي كلا صعود بي بي سي من الشمالي تلفزيون كهرابيها أونلاين كهربية برامج الشبه هل كان هو لندن برامج تنوع عاوة في عالم أنا كل عبنا دلك السودان وحسي في ذي برنامج بحياة تدرات السوي أول جزء هرجة الدولة مدحنا عمر حسن البشير إذا مدى أمان كأي استعمالي سلطة إنها الملكة كانت الرصاص أي قرء بيان ويكوك لإريان كمانان أو إسكودية إن أي كوبنا بحان أقل كمدحتوية مقالة قرطون وبعدين كودة البداية يا وحى أي شيء أو يكون هنيسا إن laba boqol waa dad gaaraya 200 oo qof in halkaasi ay ku dhinteen waxaana la sheegayaa in dawladdu ay xirtay dad fara badan bannaanbaxayaashu waxay ku eedeysay in ay markaasi doonayaan ama ay dood markaasi aanay qabin oo ujeedadu ay tahay in ay wax qarbudaan isla markaana ay gudaan hantida dadweynaha iyo weliba hantida gaarka loo leeyahay madaxweynaha waddanka Umar Xasan al-Bashir ayaa waxa uu xukunka dalka haystay muddo 29 sano waxaana uu ku baaqay in uu doonayo isbedel dhinaca siyaasadda iyo dhaqaalaha oo markaasi uu waddanka ku samaynayo taasi oo uu sheegay in ay haystaan waddankiisa caqabado kaga imanaya balse dhinaca dalalka reer galbeedka عندنا مشاكل اقتصادية ونوغنا إن الدباتوين جيران دباتوين دقالة وانا وحان كجب بكرنو لكن الرمها ردا سببا إليه قودومنا يانكو جرنا إرقلباتك يانا قودومنا سببتها وحان جبنين نوغو جان سمو أدنك آوين إدانا إلهي ونمر كوعدونا جو إلهيرا أن نحن ما نركع إلا لله سبحانه وتعالى tiradaas 200 aan idin sheegay waa 200 oo qof oo la xiray maaha in ay dhinteen haddaba waxa qadka magaalada Muqdisho toos ugu jira Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah qabiil cilmiga xiriirka caalamiga ah oo markaasi ka falada arrimahaasi Dr. Xasan aad baa maasantahay markii ugu horeysa dadkii waddanka Suudaan waa kuwan mudaharaadaya ee waddanka qalqal uu ka taagan yahay qalalaase maxay qoonsanayaan dadka Suudaan ee bannaanbaxaya waxay qoonsanayaan ama ay tirsanayaan dhibaatooyin fara badan oo ugu horeyso marka horeeto noloshooda ku xumaatay sababta sida la socoto maalmihi la soo dhaafay ama bil la soo dhaafay dalka Suudaan waxaa ka jira cunto la'aan oo dadku waxay safar dheer u doonayaan sida ay heli lahaayeen in yar oo bariis ama in yar oo sokor iyo saliid waxaa kale oo safar galayaan shidaalka waxaa kale oo hoos u dhacay qiimaha lacagta Suudaan oo ay adkaatay dadka dowladda u shaqeeya dadka xoogsatada ah inta yar ay helaan inay waxay ku iibsadaan ay gaaraan intaas waxaa dheer xukunka askariga ama ninkan militariga ahi meesha wuxuu fadhiyaa 30 sano ayuu fadhiyaa maamulkiisina waa fashilmay sababteeda fashilma waxaa caddaynaya 30 sano kadib ayuu wuxuu ku leeyahay hadda baan siyaasadda saxaya oo aan siyaasadda cusub keenaya marka suurtagal ma uma dhamo midka 30 sano la xukumayay in 30 sano kadib la yiraahdo markii cuntada saf loo galay in la yiraahdo haddaan saxaya waan
cuntadii mataqaanaa siyaasadda saxaya marka dalkii ma haystaan cunto ma haystaan xorriyad siyaasadeed ma haystaan journalismka ama iclaamka waa la caburiyaa siyaasadda suudaan iyo mataqaanaa horumarkii dalka suudaan ay sugayeen 30 sanadood ayuu meesha ninkaa fadhiyaa marka ninkaasi wadanka wuu la haray wuxuu doonaya inuu cid kala eedeeyo waan gartay dr xasan waa ka xumahay khadkaada fasiixna maaha dhegeystayaashana waa ugu daaranaya laakiin waxaad leedahay 30 sano joogay madax kale oo fara badan oo afrika intaa iyo in ka badanba joogay way jireen laakiin marka asaga qiil la siiyo wadanka suudaan nabad buu intaa ahaa soo maaha wadanka suudaan intaa nabad ma ahayn dagaalla intaa ka socday gobolkii koonfurta waa kii go-ay galbeedka waa kii dagaalada ka dhici jireen daafoor ay ka socdeen meelo kaleeto oo ka tirsan mataqaanaa suudaanna qalalaasaa ka jira xuduudaha oo dhan suudaan qalalaasaa ka jira marka magaalada unbaa caasimadda unbaa nabadayna suudaan intaasoo dhibaato ayaa ka jirta 30 sanana waxay tahay wax ku filan ay tahay haddii ay madax kala jiraan oo afrikaan oo sidaasoo kale 30 sano joogane macnaha xuduudaha uma noqonayso hebel baa 30 sano jooga iyo annaga waa sii jeegaya uma noqonayso dhammaan waa inuu bedelaa keligo talayaasha iyo siyaasadaha xun ee baadafcan ee ummadaha dib u dhigay afrika waxaas yalbaadeen iyo carabta waxaas inuu bedelaa loo baahan xasan haddii uu leeyahay madaxweyne cumar xasan albashiir isbedel baan samaynayaa oo siyaasadii iyo arrimihii dhaqaalaha waxbaan ka bedelaya oo ballanqaadu dadkii u samaynayo maxaad adigu ku dhalaysan tahay ballanqaadkayga wuxuu samaynaya lama aqbali karo laannu maalintuu xukunka qabsaday oo laga joogo 30 sano maalintaa wuxuu sheegay inuu samayn doono isbedel dhaqaalaha iyo siyaasadda ah ilaa yoomina haadana wuxuu leeyahay waxaan samaynayaa isbedel dhaqaalaha siyaasadda ah waxaa kaleeto doonaya inuu cid kala eedeeyo uu ku leeyahay israa'iil baa soo gashay reer galbeed baa xagga ka yimid cid u timaada ma jirtay asaga ayaa fashilmay oo dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo dhaqankii reer galbeedka waana xukun askareed oo aan kamid keliya way jirtaa laakiin waxaa ka jirta in reer galbeedku cunaqabatayn muddo ku haya weliba maraykanku ay xaaladiisa muddo ay daba taagnaayeen cunaqabataynta iyo lacag waayo hawl iska caadi waayo afrika oo dhan kala jirtay waayo xukunka waayo macnaha aniga ugama helinayo oo aniga maraykan ugama helinayo laakiin isaguna nima cunaqabatay waayo sababtoo ummadiis buu dilaya ummadiis buu barakicinaya maamul xumo xukun asgareed oo aan dhammaan lahayn oo 30 sano ah marka cid kastaba yaanu eedeynaya ninkaas asaga ahi asaga iyo askartooda meesha keenay kandiyaashooda hala laabteen dadka reer suudaanna ha loo ogolaado inay beerahooda ka tashadaan dad iyaga ay doorteen siyaasadda ay doonaan sida ay doonaan dhaqaalahooda u baahan yihiin iclaam hubada u baahan yihiin dadku inay tashadaan loo baahan yahay afrika iyo adduunyadana waa kasii dhammaanayaan xukun militari iyo caburin iyo jacbur iyo kaligitalina waqtigooda waa dhammaaday waayahay dr xasan waan soo koobaynaa ugu dambayntii maxaad is leedahay marka asagiiba hadda xukunkii haya mustaqbalku muxuu u dambaynayaa wadanka suudaan dadka yaqaana dadka suudaanta waa dad aad u dul badan waaye marka way usoo dulqaatan intay usoo dulqaadan kareen 30 sano ay dulqaadanayeen dabcan anigu kuma baaqayo in oo wadankii la qarribo oo masalan adeegii bulshada iyo waxyaabihii dowladda ay ka lahayd la qarribo oo dadka la dilo oo dumarka la farxumeeyo oo qalalaasa oo dhaco kuma baaqayo laakiin waa inay sii socdaan banaanbaxyadu ayagoo silmi ah oo ah kuwa nabadeed ilaa uu rajiimkaas militariga ah uu meesha ka tago oo uu ogolaado inay dadka suudaantu ay tarsadaan laakiin dadka suudaantana waxaa laga rabaa dhexdooda hadday jiraan kuwa qasulayaal dabcan askartu ayagaa soo diri doona kuwa dadka ku dhex jira oo wax ku dheela kadib si ay u dhahaan dadka wax ku dheelayay oo reegi 19 qofna waa dileen mataqaanaa 8 qofna waa dhaawac dhakhtar ku jira dhaqaaqaasanta ilaa 500 qof oo waa xidhay riboodkii ugu dambeeyay marka meeshaasi nimanka askarta ay haddaan meesha ka tigin suudaan baaritaankoodii muddada dheer socday ee dilkii madaxweynihii hore ee Rwanda Juvenal Habyarimana waxa uu ahaa qowmiyadda Hutuga waxaana lagu dilay gantaal lagu dhuftay diyaaradii uu saarnaa 94kii dilkiisii ayaana sababay xasuuqi ka dhacay wadankaasi oo 800,000 oo qof oo u badnaa Tutsi lagu dilay qareen haweenaydiisa u matalayay ayaa waxa ay sheegeen in ay racfaan ka qaadan doonaan go'aanka waxa magaalada Hargeysa markii ugu horeysay laga bilaabay tartanka ciyaarta chesska shaxda oo kale u eg oo ay ka qayb qaadanayaan 40 qof muddo bila ayaa tartankani uu socon doona waxaana guusha heli doona mid kamid ah ciyaaryahanada loolanka uu dhex marayo wariyaha BBC-da Sadiq Maxamed Burmad ayaa tagay meesha ciyaartu ay ka socotay oo ka soo warramay waxa uu ka baaraandegayaa imika godkii uu guuri lahaa si aan looga badin waa ciyaar u baahan fikir badan iyo hadal yaraan maxamed waxa
uu ciyaarayay ciyaarta noocana 10kii sannadood ee ugu dambeeyay. waxaan ciyaaraa waqtiyadan freega oo dhan iyada ayaan ku qaataa timekayga online oo kale waa ku ciyaaraa halkan oo kale beer week in a day amba 2 cisho khamiistii iyo jimcaha la isugu yimaada aan nimana ciyaartooyda inta ugu fiican ugu adag waqtiga kalena online baa ku ciyaarnaa group baan leenahay WhatsApp inta isugu nimano ayaan shabakada online chessa ku ciyaarnaa. inkasta oo wasaaradda ciyaaraha ay qayb ka yihiin haddana badankoodu wax mushahara kama qaataan. sidoo kale ma haystaan meel ay ku ciyaaraan muqaayad laga shaaheeyo ayaa martigelisay inay ku dhex ciyaaraan muddada uu tartankani soconayo. wallahi horta inta u badan ana wasaaradda waxaan u haynaa abaal gaar ah oo intaan jirnaba way nala shaqeynayeen hase ahaatee haynta iyo miisaaniyad ahaanta dawlad ahaaneed nooma saamixin in aanu helo sida xidhada kale oo kale inaanu yeelano garoomo noo gaara laakiin insha Allah billahi kareem waxaanu ku rajaynaynaa dawladdan maanta sanadka jirtay ee Muuse Biixi Cabdi in aanu helo meelaha aan ku ciyaar lahayn. qaar ka mid ah ciyaartooygan ayaa ka qayb galay dhowr goor tartanno heer caalami ah. imikana shanta u sarreyn doona tartankan ayaa ka qayb gali doona ciyaar ka dhacaysa magaalada Nairobi. Sidiiq Maxamed Burmad, BBC, Hargeysa. weli waxaad daawanaysaan barnaamijka caawiya caalamka ee BBC Soomaali waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale balan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. banaanbaxyo toddobaad jirsaday oo lagu dalbanayo in madaxweyne Umar Xasan al-Bashiir ka wadanka Suudaan uu xukunka ka dago ayaa weli ka socda jidadka wadankaasi. bal markana warbixinadii toddobaadkan aanu idin sheegnay inaanu idin soo gudbinayno ee ku saabsanaa sanadkan sii dhamaanaya kuwoodii ugu xiisaha badnaa. magaalada Garowe waxaa laga furay sheybaar loogu talagalay in lagu baaro dambiyada sida kuwa kufsiga oo kale. waana markii ugu horeysay ee Garowe uu ka howlgalo barnaamijkaasi oo BBC-du ay booqatay xarunta ayaa waxaanu ka diyaarinay warbixin 31 bishii Agoosto waana tan. inta cilmiga dambiyada waxay tahay xarun ku qalabaysan inay samayso wixii la xiriira cilmiyo badan oo kala duwan oo lagu talagalay in lagu xaliyo markay soo dhacaan nasiib xumo dambiyo. xaruntu waxay samayn kartaa qaybaha biology-ga macnaheedu wuxuu yahay haddii la keeno sample ka yimid meel uu ka dhacay dambi ka dhacay oo uu yahay sample ku xiriirsan wax nool laabku wuxuu awood u leeyahay inuu ka soo bixiyo maaddo la yiraahdo DNA-da oo u saamaxaysa in la muujiyo ama la cadeeyo qofkii ay ka timid DNA-daas. marka waa qayb ka mid ah waxyaalaha laabku sameeyo. laabku wuxuu kale u sameyn karaa qayb la xiriirta xagga waxyaalaha muuqda. marka la waxyaalaha muuqda waxaan ka wadnaa qof markuu dambi sameeyo goobta uu tago wuxuu uga tegi karaa wax la xiriira farihiisa. laabka iyo tiim ka shaqeeya waxay awood u leeyihiin in meeshaasoo kaleeto marka la tago la soo saari karo farihii laga tegay. qaybta kale talaabka uu sameyn karo hadda si kubcaysa waxay tahay qaybta chemistry-ga iyo dhinaca sunta ama toxicology-ga. sambalada waxay nooga yimaadaan naga soo gaaraan booliiskii iyo waxay naga soo gaaraan CID-dii. iyaga ayaa kuwa taga meeshuu ka dhacay dambiga, iyaga ayaan tababar siinay isla markaana siinay qalabkii loo baahnaa ay ku soo qaadayeen. markii inaga noo keenan aan u sameyno aan u baarno aan dhamaystirno qorshaha wuxuu yahay in iyaga ku laabato kadibna iyaga iyo maxkamadihii ay manaha ay qofkii lagu tuunsanaa dambiga ee marsiiyaan wixii loo baahnaa.
waa sax laabka in ujeedada loo aasaasay ay tahay inuu xaliyo dambiyada laakiin maaha oo keliya shaqooyinka aan qabano ama aan qaban doono inay noqdaan keliya kuwa ku saabsan dambiyada hadda tusaalahan waxay nooga filan waxaan qayb ka xalinay kiis qof laisku haystay ama lagu muransanaa cidda dhashay sababta wax kale maahan cilmiga laabka hadda aan ku hayno gaar ahaan xagga biologiga xagga DNA-da waa maado fiican oo looga faa'iideysan karo waxyaalo fara badan hadday noqon lahayd xagga dambiga lagu baaro hadday noqon lahayd xagga caafimaadka iyo hadday noqon lahayd laftigeeda xagga in lagu kala saaro caruurta la rabo in la ogaado cidda dhashay isku soo duub laabka maadaama uu yahay forensic laboratory awood wuxuu leeyahay waxaasoo dhan oo cilmi ah in la isticmaalo si loo xaliyo dambiyada hadday noqon lahayd kuwii la xiriira faraha hadday noqon lahayd kuwii la xiriira chemistryga iyo kuwii la xiriira biologyga xagga ciyaarahana kooxda degmada waa bari karisane muqdisho ayaa markii labaad oo isku xigta waxay qaaday sanadkan koobka tartanka kubadda cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir 25 September balse waxa indhaha daawadayaashu ay soo jiiteen Culay Maxamed Aadan oo ah hooyo 80 jira oo ku dhawaad 50 sano taageero u ahayd kooxda waa bari BBC-da ayay u warantay waxaan taageerahay farxad iyo hambalyo iyo reyn inta dibadda joogto iyo inta dalka joogtaba waxaan leeyahay awguuriyo degmada waa bari ku soo dhawaada waa bari aad iyo aad taageero culus aa jooga duqa iyo doobka gabadha yar iyo wiilka yar ama habarta ama aabbaha ama shiiqa ama shariifka ama waayeelka kulligood waa wada taageero caawada wax seexda waa bari male hadda dheelaan lagu jira hadda taleefanaa la ii soo diray bannaankaan ku dheelihaynaa layidhi koobka waa qaadna ma la saaray baabuur lugaa lagu geynaa waa beri lugaa lagu geynaa anaa dad u liita waa lugaynaa koobka farxad iyo reyreenaan ku geynaynaa degmada waa beri caawada in lagu dhafro degmada dhexdeeda ballan la qaaday aniga waxaan u taageeraa waa beri waa degmada aan degana waxaan degana fiina waqtigaas oo maxamed siyaad qabte ilaa al'aankan inaan jubbada hoosa aniga la igu dhalay inaan tago ma ogiyo weligay ma tagi meel kale ma seexanin waxaan seexdaa degmada waa beri intay nafta xun igu jirto labada lugood aan saan dhahay waa wadaa ma dhaafayey anoo cimri ku jiro ulba aan qaato waa soo guurguurana waa taageera usoo guura waa beri usoo guura waa beri usoo guura calaamadan anaa tole inta wadato anaa u tole waxaan ugu tole waxaa ku taallaa hambalyo guul waa beri waa beri oo hanuunsanaa yimiday hooshaaney hadheeda loo yeelo isleelaha isloogiyayo ahmiyayna waa heleyna waa beri oo wanaagsanoo walaalihii waa iswataan waa beri oo wanaagsanoo walaalihii waa iswataan waa beri oo wanaagsan walaalihii waa iswataan waa iswadanaa sheekh iyo shariif qabiil ma qabno waa beri koobka waxaan qaadna kalsoonida aan isku qabno macal ciyaartooydaan macal taageer macal odaga guriga jiifo haa nahay hal far way waa beri laba far ma aha wax kala xumaanay male haddaan isagaalno hadda raalli abbahay abbow macaaney waa tahay xusuusno wararka ugu dambeeya ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa bogayaga bbc.com/somali inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale dib u kulmayno dhammaantiinba waxaan idinkaga tagaynaa habeen wanaagsan